haddii dhawaanahan aad maqlaysay nin billionaire hadda millionaire maaha waa billionaire oo u dhashay waddanka Japan oo isagu dhawaan sheegay oo faafiyay inuu doonayo gabadh ay isu raacaan hawada sare oo ay wada dalxiis tagaan oo markaa xidhiidhna ay yeeshaan waxa uu sheegay in arjigaasi uu furan yahay gabadh kasta oo soo dalbanaysa aad iyo aad baa arrintiisa loo xiiseeyey waxaana ay noqotay mid horta gabdho fara badan ay ka soo jawaabaan 10,000 maaha 20,000 maaha 28,000 oo hablood ama gabdhood ayaa horta ka soo jawaabay codsiga ninkaasi oo iyagu sheegay inay diyaar u yihiin inay la galaan safarka dheer ee lagu tagayo hawada sare ninkan odayga ayaa haddaba intaasi uu kuma joogin ee gabdhihii codsigaasi soo sameeyay ayaa qaar fara badan oo kamid ah waxa bogogiisa internetka uu ku leeyahay uu su'aalo ku weydiiyay su'aalaha gabdhaha la weydiinayo waxa kamid ah su'aalo isagu uu soo diyaariyay oo ku saabsan waxyaabaha uu jecel yahay iyo waxyaabaha uu necab yahay oo markaas su'aalaha gabdhaha la weydiinayo kuwooda haddaba su'aalahaasi sida uu doonayay uga jawaaba ayaa ninkan odaygii waxa uu soo baxay sawirkiisa qoslaya kuwa markaasi su'aalaha ku dhacana waxa uu soo baxay sawirkiisa oo murugo iyo muraaro dilaac uu ka muuqdo haddaba waxa la sugayay bal hadda 28,000 ee gabdhood ninkan odaygii ta uu ka xulan doono ninkan horta marka horeba waxa sheekadan ku dhalisay haddii aad isweydiiso waxa ay tahay ninkani waxa uu leeyahay dhowr caruura oo gabadh hore kala tageen ay u dhashay gabadh kale ay baryahan xidhiidh ka dhaxeeyay dambana bari dhaweed bay kala boodeen dabadeedna wuxuu yiri malaha ka xulo oo ka xulo oo ka xulo oo deedna waliba hawada saro cidina aan idinku wehelinin isu raaca marka ugu horeysaba gabadha xidhiidhka cusub ee idin ka dhaxayn doono haddaba waxa la sugayay sidaan horeba u sheegay bal hadda gabadha uu ka xulan doono 28,000 ee gabdhood ee codsigiisa ka soo jawaabay oo waliba qaarna ay taxaan mareen bal haddaba jawaabta ka soo yeedhayba waxay noqotay mid aan looga fadhiin ninkii odayga waxa uu yidhi arrintiiba waan ka noqon waxaan uga noqday buu yidhi markii aan arkay jawaabaha faraha badan ee laysoo siiyey iyo kala doorashadii oo adkaatay iyo arrinkii markii horeba igu dhashay ee ahaa buu yidhi inaanu hawada sare u dalxiis tagno oo qudhaydu markii dambe aan ka shakiyey waan deedna iskaba dhaafay deedna arrintaasi lama filaan bay ku noqotay gabdhihii faraha badnaa ee sugayey ama mid kastaaba ay islahayd adaan noqon doona ta ku soo baxaysa ninka milyaneerka isnacay ee taajirka ka tagaya hawada sare u raaci doonta waxaan u malaynayaa gabdhahaasi badankoodu inay heesta qaadayeen baryahan عن عديد السمديو عدك عوا إلى قروب عن عديد السمديو عدك عوا إلى قروب markii hore heestaasi waxaan u malaynayaa ninka odaygaaba qaadayay ee billionaire-ka markii dambena gabdhaha qaadayay